dayaxyo ku wareegaya rogue planets ayaa laga yaabaa inay nolol taageeri karaan. Cilmi baaris cusub ayaa muujisay in dayaxyada ku wareega rogue planets kuwaas oo bannaan ku socda oo aan lahayn qorrax ay weli yeelan karaan heerkul ku filan oo ay biyo dareere ahi ku jiri karaan, taas oo ah shuruudda ugu muhiimsan ee nolol. Maxaa ka dhigaya dayaxyadan kuwa suurtagal u ah inay nolol taageeraan? Hal hidrogen atmosfere oo aad u dhumo badan hidrogen ma qaboojiyo xitaa marka uu aad u dhaxan yahay. Cadaadis sare awgiis, hidrogen wuxuu noqdaa buste kulayl qabta oo aan u ogolaanin kulaylka inuu baxsado. Tani waxay dayaxa siin kartaa heerkul ku filan oo biyo dareere ahi ku jiri karaan. 2. Tidal heating, kulaylka yimaada jiidashada ufjiidadka marka dayaxa uu ku wareegayo rogue planet. Orbitkiisu wuxuu noqdaa ofal. Tani waxay abuurtaa jiidasho gudaha ah oo kululaysa dayaxa sida iyo ee Jupiter. Natiijooyinka modelka. Cilmi baarayaashu waxay heleen in dayax leh hidrogen atmosfere tidal heating ayuun biyo dareere ah ku hayn kara ilaa 4.3 bilyan sano. Taasi waa ku dhowaad dada dhulka, wakhti ku filan in nolol adag ay soo baxdo. Maxay tani uga dhigan tahay raadinta nolol ka baxsan dhulka? Rogue planets waa malaayiin ama bilyan, laga yaabee trillions. Haddii xitaa boqolkiiba yar ay haystaan dayaxyo noocan ah, tirada meelaha nolol ka dhalan karto waa aad u badan. Waxay muujinaysaa in qorraxdu aysan shardi u ahayn nolol. Kulaylka gudaha, hidrogen atmosfere ayaa ku filnaan kara. Maxaa xiga? Ma hayno qalab aan ku baarno atmosfereska dayaxyadan fog. Laakiin modelka ayaa la ballaarin doonaa si loo tijaabiyo noocyo kale oo atmosferes ah. Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan ee raadinta nolol mustaqbalka.